salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. asxaabta ku xiran janaalka xakiim yar official, fadlan janaalka haddaad ku cusub tahay subscribe, like, share sii gaarsiiya asxaabtaada dunida daafiyada kala joogto. waa walaalkay xakiim yaroo idin leh, waa barnaamijkeeni jaceyl iyo calaf iyo jaceyl marka loo kaleeto jaceyl weeye. waa sheekadeeni taxanaha ahaan jirta ee la magac baxday calaf iyo jaceyl. waa qaybteedii afraad. qaybta hore maadaama ay ku ekeed fursad uu kula hadla isagoo raadinaya inuu khadar dalbado cuntada inuu qeybiyo, wuxuuna soo gaaray barta ay fadhisay hodan. wuxuuna la kulmay hodan iyo habaryarteed, wiil ka mid ahaa dalxiisayaasha oo gooni u fadhiyay. isagoo qalbiga ka naxay ayaa waxaa dhegihiisa ku soo dhacay hadallo ay si weedaarsanayeen saddex qof oo kala ahaa habaryarta, wiilka iyo hodan. inay aqbasho hodan jaceyl inay aqbasho ayaan jeclaan lahaa, maadaama kuleytu wiil kale loo khalkhalinayo. khadar isagoo ka biyadiidsan wiilka hodan loo sasabayo ama loo khalkhalinayo ayuu cuntadii u dhigay. markuu dib uu laabtay ayay la hadashay hodan, waxayna ku tiri, walaal waxba maada cunine, nala fadhiiso. khadar intuu yiri mahadsanid ayuu iska dhaqaaqay. markii la qaybiyey ayaa waxaa laga bilaabay sheeko la qadeeyey ayaa sheekooyinkii goosgooska iyo kaftankii ahaa la bilaabay, balse khadar kama uu qaybgelin. goorka casarkii ay tahay ayaa loo dareeray dhulkii lagu dalxiisayay, balse khadar kama uu qaybgelin. wuxuuna keligii joogay baabuurta agtooda. hodan waxay dhalinta ka dhex weyday khadar. waxaa loo sheegay khadar inuu ku sugan yahay baska dhexdiisa. hodan intay habaryarteed ku tiri waa soo noqonaya ayay khadar oo keligii u timid. khadar isagoo iska maqan ama iska fakaraya ayaa hodan ku soo jeedisay cod dabacsan. khadar wuu farxad naxay, waxaana madaxa ka fuuqday qolof weyn, tin iyo ciribba jiriircana korkiisa wiisaaqday. kadib waxay hodan su-aashay waxa dadka ka reebay. isagoo jawaabin ayay haddana weydiisay dhowr su-aalood oo kale, balse khadar intuu qalbiga iskala hadlay ayuu go-aansaday inuu u sheegto jaceylkiisa u caddeeyo. wuxuuna yiri, walaal hodan, muddo sanad ah waxaan rabay inaan kula hadlo, balse ima suurto gelin. ha yeeshee waxaan maanta kuu sheegayaa inaan aad ku jeclaa. waxaan ogaa inaad waddanka ka dhoofayso, oo waxaa kala ogahay in reerkaadu doonayaan inay ku dhisaan wiilka aad qadada wadaagayseen. ha yeeshee ama ha ahaatee waxaan ahay qof ku ohliyoobay oo ilaa xad ku jecel, balse go-aanka adiga iska leh. hodan waxay ku duxday ama galay hadallada khadar iyo galgaceylka loo soo jeediyey. iyadoo markaa hodan kumay degdegin go-aanka. waxay khadar u soo jeedisay inuu sheekada dib ugu dhigo, uu ka soo qaybgalo dalxiiska. khadar waxaa qalbigiisa saaqay dareen farxad leh, wuxuuna go-aansaday inuu dalxiiska ka qayb qaato. waa sheekadeeni taxanaha ahayd ee calaf iyo jaceyl. fadlan janaalka haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro muuqaalka aan soo gelino. waa walaalkiin xakiim yar oo idin leh, soo dhowaada. fikradiina waa inoo muhiim, taladiina waa inoo muhiim. because fikrad haddaa qabto aad rabto in meel aad rabto inaad soo bandhigato ama meel aad kusoo bandhigato, waan kugu tixgelinaynaa, waana kugu soo dhaweynaynaa janaalka. anigu malihiye, daawadayaasha ayaa iska leh. anigu matale unbaa warka unbaa soo jeediya, laakiin dadka daawanaya ayaa mar walba tixgelinta iska leh. waa walaalkay xakiim oo idin leh, salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.